السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawaneysaan ku soo dhawaada mar kale qisooyinkeena mid kamida qiso cajiiba ayaan toddobaadkan idin hayaa. sida caadada qisooyinkeena waxaanu ka soo qaadanaynaa buugga qisooyinka la yaab kale ee uu qoray qoraaga reer Kuwait ee la yiraahdo Abu Talal al-Hamrani. qisadan waxay ka dhacday dalka Masar gobolka la yiraahdo Muxaafadad al-Manufiya tuulo la yiraahdo oo gobolka ka tirsan Baaquur la yiraahdo. qisadan waa qiso la yaab leh waxaa lagu daabacay wargeysyada xilligaas dadkii tuulada ku noolaa Baaquura ayaa aad markaa uga hadlay warbaahinta tagtay. haddaba qisadan waxay tahay qisada magaceeda horta waxa la yiraahdaa qisada haweeneydii guursatay shaydaanka ama jinka guursatay. waa sheeko la yaab leh oo aad cajiib u ah. haddaba qisadan waxay ka bilaabanaysaa tuulada la yiraahdo Baaquur. tuuladaas dalka Masar ku taala waxaa ku noolaa laba gabdhood oo walaalo ah. mid waxaa la yiraahdaa Kawthar, midna waxaa la yiraahdaa Sacdiya. Kawthar ayaa weyn, Sacdiyada ayaa ka yar. waa laba gabdhood oo dadka deegaanka ay gacan u taageen marka laga hadlayo sixirka, la shaqaysashada jinka iyo waxyaabaha la midka ah. wayab Kawthar iyo Sacdiya waxay deganaayeen guri tuulada ku yaala. guriga waxaa saf u gala dad fara badan oo walxahaas doonaya inay markaa ay shaqooyin u qabtaan. sixirka, nimanka iyo naagaha la kala geynayo, dadka la isku dirayo, dadka la kala furayo, waa un camalu shaydaana la yiraahdaa ayay ka shaqaystaan. marar badan ayay booliisku ka shakiyeen. dadka way wareysteen, waxay yidhahdaan midda weyn ee la yiraahdo Kawthar waxay dadka u sheegtaa inuu qabo jin. guriga markii la galo dadka waxay u sheegaan adiga waxaasaa ku haya, adiga meeshaasaa maanta soo martay, adiga saas. dadkii tuulada way dhaaftay, waxay u gudubtay meelo kale ilaa magaalada Qaahira looga yimaado oo dadka waxaa iyaguna rabaa halkaa usoo doontaan. hebel ii sixir, hebel lacag u haystaa, lacagta iga qaad, ninka yuusan naa kale iga guursanin. balaayo dhan ayay meeshaa ku falkiyaan. dhowr jeer ayaa booliisku ay isku dayeen guriga inay tagaan oo ay baaraan. gurigii way tagayaan, waxba ku arki mayaan. wax ay arkayaan lama arko. booliiska laftirkiisa ayaa sheekada og, marka way baqayaan. naagta jinaa qaba iska jir iyo markii la yiraahdo way cabsanayaan. booliiska laftirkooda baaritaan badan ba sameynayaan. halkaasay ka shaqaysanayeen. dadka waxay ka qaadaan dahab, waxay ka qaadaan lacag. way taajireen, lacag fara badanay yeesheen. waxaas ay ka shaqaynayaan jinka oo la shaqeeya sixirka, dadka ay waxaas u samaynayaan ayay lacagaha ka gurtaan. guri yaray markii hore deganaayeen, kadib gurigii way ka guureen. waxay degeen guri weyn ayay gateen. masracay gateen, beer, baabuuray gateen. way taajireen, hantidii way badatay. labadoodii hawshaasay ka shaqaystaan. xataa dad waaweyn ayaa usoo dhuunta oo dowladda iyo meelahan ku jira. xilkaas baan u baahnahay, ninkaabaa iga hortaageen ee ninka la tuur, nagtay ka saaraan. jinniye iyo waxbay u isticmaalayaan. waa la yaabay. dadka tuulada marka way cabsadeen. waa laga baqaa, waa la ixtiraamayaa. markay dariiqa soconayaan nin walba lafiisu uga baqayaa. haddana dadka waxay u sheegeen gabadha weyn in uu qabo jin. ninka hawshaa wadow dhan inuu ninkaa jinka yahay, wuxuu dhowaa karaan aanay jirin. sheekadu waxay sidaa ku socoto. maalin maalmaha ka mid ah, nin la yiraahdo Shacbaan ayaa wuxuu ka shaqeeyaa oo uu leeyahay magaalada Qaahira kawaan weyn oo ku yaala oo hilibka lagu gado. laakiin ninka ma degana Qaahira oo uu shaqo kaliya u joogaa. laakiin toddobaad walba wuxuu soo aadaa tuuladan la yiraahdo Baaquur oo markaa xaaskiisa ay degan tahay. halkaasuu jamcihii la soo joogaa, kadibna wuxuu ku soo laabtaa shaqadiisa.
ninkii markuu muddo sidaa ahaa wuu wareeray, wuxuusan arki jirin ayaa ninkii ku dhacay. markuu yimaado gurigii oo uu tuuladii yimaado, ha sheegin wax ma jiraan. odagii raganimadii eber, wax uu ka tari karo gabadhii uu qabay ma jiraan. ninkii wuu yaabay, xaggee lagaa galay, intee lagaa farsameeyey? tuuladuna dee shacaacaad badanaa jira oo la leeyahay labadaa gabdhood ayaa waxaas ka shaqaysta, way taatikeeyaan dadka. sheeko waalala meesha ka socota. ninkii jazaarka ahaa wuu soo baxaa, wuxuu yimid qaahira si uu isu tijaabiyo. wuxuu guursaday gabar qaahiro ku guursaday. waa caadi, waa nin fiican, waa dagaalamayaa. laakiin markii uu tuulada yimaado, hubka dhigis uusan garanayna lagu sameeyaa ninkii waa yaabay. naagtana dee naagtiisii koowaad waaye, aaduu u jecel yahay, tuulada u degan. naagtii waa yaaban yahay ninkan, war xaggee lagaa galay, sidee wax u jiraan? marka gabadhii uu qabaa marka waxay tidhi, war labadaa gabdhood ayaa waxaan sixir iyo waxa kan ka shaqeeye, war labadaa gabdhood maa soo weydiisid waxa ku haya. tuuladan tuulo caadiya ma ahane, waana la galaan u malaynayaa. markuu muddo sidaa ku joogay, uu yidhi waxaas ma aaminsaniya, iga daa, ayuu tegey. markii dambe dee waa nin iska waxuu loo sheegay. ninkii meeshuu tegey, safkii oo dhinac ka galay. shacbaan safkii u galay. shacbaan marka waa nin dheer oo bidaar leh oo xoog leh. masaaradu dee nimankooda inta badan waa xoogan yihiin, dad waaweyn oo xoog leh, waa lafa waaweyn. safkii u galay, safkiisa u socday, soo u socday, wuu ku tegey. wuxuu yidhi problem ay haysta, maxaa ku haya? labadooda way is ag fadhiyaan. midda kawtarada ah oo tiri jinka ay qaba, aniga shaydaanka weyna ay qaba tiri, tusbax weyn iyo alaabay wadataa, tanna fooxay u shidaa, walaasheed way la shaqaysaa, way isla joogaan. ninkan marka waxaa la yidhi waxba ha sheegin, aamus, annagaa og warkacoo dhan, waxa u timid oo dhan aa ognaha layidhi. oo maxaa noo imid u yidhi, halkaa gacanta u dhawey, fooxa korkiisa gacanta saar. haye adiga waxba ma sheegaysa, annagaa waxa kuu sheegaynaa. indhaha isku qabo, dhab indhahi isku qabtay. markaase waxay tiri, xanuunkaasaa ku haya, markaa gurigaaga tegtid eber wax jira male, waa leeb dhacay bahalkii. haye sidee wax u jiraan? yaa i galay, ii sheega, maxaa dhacay? waa la garanayaa ay dheheen. gabadha aa qabto ma garanaysaa qaraaba yihiin? oo intaadan middan guursan, iyada inaad isguursanaysaan iyo waxaas aad ku ballanteen, kadibna aad ku ballan furtay, ayaa ku taatikaysay waay. okay, magaaladan tuuladan cid kale oo wax taatikaysa ma jirtee, labadiina wax taatikeeye, adinka baa itaatikeeyo. tii weyneed kawtarteed indhaha inta kala qaaday waxay tiri, annagaa ku taatikaynay, laakiin gabadhaas taatikadeedu arrin la yaab leh samaysa. marka waa inaad lacag fara badan bixisaa si lagaala hadlo jinkii weynaa. hawshaa marka loo galo, tafkiik in la sameeyo waa wixii la kala furfuro. meeqaa layga rabaa intaan? ninkaan dee waa nin iska shaqaysto, kawaanu iskale, xoogaa lacagna uu iska haystaa. lacagtii ka daldasheen, way ka qaataan. maalin kale uu soo laabta, weli hawshaadii waa lagu jiraa, intaas keen, wuu dhiibaa. nagta ka dhigeen ninkii lacagtii laga dhameeyey, wax u toosayna male. maalinkii dambe u soo laabta, wuxuu yidhi, sidee wax u jiraan? lacag waa dhammaatay, waxna iima qabanaysaan, weli sidaydaan ahay, sidee wax u jiraan waaye? markaase waxay tiri, aniga waa ka xumahay, anaa aasif ee dhowr jeer ku celcelis. oo maxaa ka xuntahay?
tafkiik haddii la sameeyo baashan meel xunaa lagu xaro waa la dhuujiye inaad dhimataa laga yaabaa laa xawla walaa quwata ilaa billah maxaa dhacay waaye inta wax kale ma hayno xal aan ahayn islaantana inaad isaga tagto naagtaada kale oo meesha aad ku qabtana aa iska qabto tan waxa waaye hawsheedii meel xun aa la geeyey oo adinka maa geeyey mayda annagu dee hawsha dadaa noo qabto shayaadiin iyo waxbaan u dirnay shayaadiintii markaa waa laga furi waaye mid baa inta xiray ayaa la la'yahay ilaa hada ninkii wuu yaaba oo hadda waxba iima qaban kartaan miyaa maya lacagtayda ii soo celiyo markaasay yaraadeen laa meeshaan wax soo gala ma ahane wax ka baxa maba jiraan baa layidhi xal waa lagu hayaa waa la furaa laakiin waa inaad 50-50 qaadatid 50% inaad dhimanaysid iyo 50 inaad badbaadaysid marka inaad dhimanaysa xataa u badan tahay oo lacag layma soo celinayo miyaa maya okay iska tegi ninkan waa wareersan yahay daahiradiisu aaday muddo ma way maameeshii maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa la soo wargeliyay booliiska waxaa layidhi labadii gabdhood gurigii ay deganaayeen dadaan maanta booqday oo tagay markay fiiriyeen labadoodii oo qoorta laga wada jaray maydkoodiyaa dhulka yaalla booliiska way soo carareen booliiska intaysan soo bixin culumay soo wateen oo qur-aan ku akhriya meesha mid booliiska ka mida wuxuu yidhi naagta jinaa qabaa layidhi xogteeda meeshaan booliiska waa hayaane warjinka amuu ka takhalusay uu dilay siuusan annaguna noo dilin aan culamo kaxaysana yidhaahdeen 4 wadaad oo tuulada joogtay oo culamo ay soo kaxaysteen booliiska meeshay yimaadeen ninkii baaraha ahaa kiiska baarayay wuxuu yidhi nin khibrad leh aad dilay naagaha ixtiraaf yaa layidhahdaa nin bahasha sida wax loo jaro yaqaana waxaa moodaa in cabir la saaray jag marka waxay yidhaahdeen hawshaa hawl sahlad ma ah ninkii baaxidka ama baaraha ahaa wuxuu yidhi faraha ha la sameeyo مليان فرع صبح قرية مالي والبع دور بقوله قفا تكتا بيقى فرع لقيلها بيش بوليسكي وايابي وعينا دي قرية نوعوها انتا صفروضها بين والبط هذا بين وحلقة بالله بالواي نك هذيك الشيء لو دي قبلود ميتكو دي على قاضي فرتجير كالقري بوليسكي قاركودا وحي كان على عسن تاكتن jidka qabay jidkii tatagaaleen ayaa labadaba jidkii qoorta ka jaray ninkii baaraha wuxuu yidhi may waa baaraynaa kiiskaan ilaa meesha ugu dambaysaan isla tegaynaa wuu ku adkaystay waa la baaray xaafadihiyaa la waraystay tuuladii dadkii deganaa la waraystay halkan waraysiyadii marka waxaa kasoo dhex baxay dadka tuulada yaa la la'yaha layidhi maalmahan aan imaan nin shacbaan la yidhahdaa layidhi muxuu qabtaa jazaar waaye dheh jazaar waxaa la yidhahdaa af carbeedka ninka ka shaqeeya kawaanlaha waaye haguu joogaa meel qaahira ku taalo shacbiya la yidhaahdo ayaa kawaan weyn uga furaya marka muddooyinkan ma imaanba ninkaas waagii jariimada ay dhacaysay kadib maba la arkin ninkaas ma soo noqon ninkii baaxidka marka maxaa u sawirmay ninka booliiska dee waxaa laga doonayaa inuu fiirada dadka meesha ka eegayaan meel ka duwan ka eego markii wuxuu yidhi ninka waxaan sameeyey waa nin khibrad u leh jarjaridda lafaha iyo dadka gowracidda iyo ninkii maxaa la yidhi waa jazaar u fiirsada waa nin kawaanka ka shaqeeya xaafadanna xaaskiisaa degan muddana uma imaanin booliiskii marka waxay yidhahdeen ninkii baaraha ahaa ninkaas alla soo qabto booliisaa loo diray asoo qaahiro joogaa waa soo qabtay
interview waraysi laga qaaday waraysi dheer ما ليلة كذا ساعة كذا حكيت شوكت معناها هبين كاس ساعة داس واحدة عين بوليس كل وصل شيء نكا واحد حكيت شوكت أنا قاهرة جوي ما بحب هاي يا عضيني مغربكي مركا حريقي ماشي ذا وأنا حافظة عند جنا هاي هذا ها dadkii ugu dambeeyay waxa gatay dad dariska ku jiray ayaga marqaati loo wacay dadkii loo wacay dadkii waxay yiraahdeen ninkan saacad heblaayo habeen heblaayo maaratay meeshaana wax uga gadanay isagaana hilibkii waxa naga gatay aniga waxa aniga meeshaana joogo aniga meeshaas mar ugu dambeysay boliiskii waa iska siiyay waa la iska siiday ninkii baaraa wuxuu yiraahdaa waa deynina laakiin ninkan baasho ku meelaan ahayn asagu kuma wareeganayso u fiirsado booliiska waa la soo tagay ninkii waa la sii daayay shaqadiisu iska wataa ninkii baaraha wuxuu yiri tuulada hal basaa yimaado oo manuufiyada gobolka ka soo tago tuulada yimaado ka shaqeeya ninka marka baska dadka tuulada wuu yaqaanaa dee tuulada laga leeyahay baska ninkii marka booliisku yeereen waraysi ka qaaday nin shacbaan la yiraahdo oo dheer oo bidaar leh oo saasa oo habeenka saasa ma garanaysaa hor habeenkaas ninkaas marka wuxuu yiri ninkaas habeen saasa uu na soo raacay subaxiina waa qaaday dadka oo noqonayeen oo gobolka la sii tagayaan manuufiyada la yiraahdo kadibna qaahira laga sii aaday markay gobolka geeyay meeshuu ka sii baxay ninka habeenkaas waa na soo raacay ahlan wa sahlan marqaati kala la helay mawjida boliiskii marka waxay yiraahdeen ninkii marka la soo qabto ninkii shacbaan dheer bidaar loof hala soo qabtay yiraahdeen ninkii loo tagay waa la soo qabtay وحالي صاحب أرتا بينا موشيك تالي كذابة تالي بينالا تالي ورمحا بينالا كواي رادقيش علي الشيخ أنك شيء كذا سأنو شيء وحالا قاربا ليري هبين كاس معالي كاس هبين كي بسك قدام بيسو ماذا صور راعين نكي بسك أيام مرقاتي أهالي dadka qaar xataa way kugu marqaati ku fureen waxa marka beetu loo sheegtay ninkii marka waa la kacay saaridu de waa lagu garaaca meesha afis ma jiro ninkii marka wuxuu yiri way dilinin sida ay wax u dhaceen aan idin sheegaya haye niwaarikaas ay ugu dhacay naagtii waxa igu samaysayna oo waa ku sixirtay la yirina naagtii ima sheegayaan lacagna way iga daldasheen wax aan ku qaban karnana ma la yiraahdeen ilaa haddaan shaqadaada galayno waa dhimanaysaa marka aniga maana waxaas wallahi alazim wuxuu yiri waxaan go'aan ku gaaray waxa sida yeelay naagta qaraabadeeda naagta ah oo balanta uga baxday ma dadka waxaan sameeyso ayaga ma aha ayaga aniga go'aan ku gaaray inaan qorto ka jiro هاي والله وحيري وحان سجود هاي إلهاز قفك قطن بيا وكسو بحاي ضدك صفك كجري برناك تاجنا مركي البابك حرتين كوريا وقفنا أوسن كجرين أيان صوغر كراع من دي أفله وحوق بدن واسوقات كوان كاكسوقات وحي واتياسين الباب كان قراعي الباب كان مركان قراعي يا واي شعبان واي والشعبان شغدي وانا مايني كوثرتي يا دهيسو كوثرت ومد جناء قبله كوثرتي يا والله هل أرين بسار رواينا كويدي بليس يغفر بوليس كان مالكي أي بارتان كقولك كسمينيين الباب لتشبيه تريشد لجبيه وحبا ما يسان عركين موقتي qofka guriga soo ku soo galay dadka waxa uu sameeyay waxa kuwa kale booliiska kale sababta u leeyihiin jina hawsha ka dambeeyay saasay ka shakiyeen
gabadhii marka albaabkay furtay maxaa rabtaa tiri eedhaysa maalinta saas u kala tuuray nin xoog badan oo ahay hal maruu mididii inta la soo baxay maba qaylin karinba uu ku dhufanay qoorta dhulka taal waa ninkii sababta loo leeyahay nin khabiir ah helay sida wax loo jarjaro qoorteedu dhulka dhigay tii kale oo guriga ka soo baxday yaa waaye dhahaysa ayuu idana inta u tagay isla sidii hal maruu ku dhuftay dhig dadka dariska xataa qayla maxaa la qaylina madaxa xaggaas u boodboodaa keligiis faraq oo leeyahay gurigiiya marka waxaan ka dareemo yiri guux wallaahi alcadiim yiri jinka naagtaan qaba leh shayaadiinta guriga ka buuxa haddaanan qoortayda ka jarin albara waxaan arko yiri guriga dhexdiisa waxaanan u jeedin oo istardara markaa arkoo dhahay guriga inay shanqarti yaraatay ayaan guriga inta galay armaajo meeshaana oo dadkii lacagta ay ka gurteen ay uga buuxdo dahabkii ay dadka uga gurteen uga buuxdaan qaatoy waxay gaan qaatay aniga dee lacag iga maqan yiri marka waa ay dhaceen waxaygii wax ka badan buu qaato igana qoortaan ka jaro balaayeedu ku dhacday masaasa ahaa saasaan ku dulo yiri aniga saasa ii galeen xaaskaygii aniga waa kala tagnay yiri inaan furo waaye maxaa iyana uraani raganimadii dhan iga dileen naftayday u yimaadeen ninkii waa booliiskii waa yaabeen ninkii waa la soo kaxeeyey maxkamadda yaalkaan qaadiyaashii maxkamadda kiiskii dhegaysteen waa yaabeen qaadiyaashii waxay yidhaahdeen annagaa isku noqonaynay bal horta noo suga qaadigii weynaa go-aanuu gaari waayey garsoorayaashii kaluu la tashaday maxaa yeela ninkan wuxuu taagan yahay aniga difaacu nafsiya ku jiray naftaydiyaa loo yimid mar haddii loo yimaado macalinka weyn wax yaala macalinka weyn howlgabaa laga dhigo yidhi laa xawla walaa quwata ilaa billah markii dambe booliiski markii nimankii garsoorayaasha waxay isku raaceen war ninkan maadaama uu dil geystay uusan dowladdana soo wargelin uusan soo dacweyn dadkan uusan dacwad ku soo oogin oo asaga wixiisa inta qarsaday go-aan iska gaaray macsaa dowladda maya dil toogashaa lagu xukumaalay oday shacbaan bidaarow tiirkaa la geeyaalin halkaasaa lagu toogto halkiyaa ninkii lagu toogtay ninkii hala toogta ma xumee jaraa'idkii oo dhan baa soo qoray dadkii tuulada waaba la haystayba dadka tuulada dowladdii ay yaabtay mudaaharaad ay samaynayaan ay ku taageerayaan shacbaan waxay yidhaahdeen saaxiriintii naga dilay tuulada dadka dhan nimanka dadkan xoogay ku haysteen waa laga baqayay sida amiir camalay u maamulayeen meesha xataa booliiskiyaa baqaya gurigooda tegi lahay qisadaasu marka waxay noqotay qiso aad iyo aada u shaacday sida qoraaga uu leeyahay masar dhan aad looga yaqaano gobolka ay ka dhacday waxaa layaa manuufiya tuulada gobolkaa ka tirsan waxaa layaa baaquura oo qisadu ay ka dhacday runtii waxay ahayd qiso la yaab leh ninka shacbaan layidhaha nin ragu ahaa aniga horta saasa aaminsana ninka nin ragu ahaa laakiin hal miduu ku qaldaraa midda uu ku qaldaraa waxay ahayd kiiskan inuu dacwad ku soo ogo isaguna wuxuu isla haddaa dacwad iyo saaxiriinta la aadid hadday macalinka weyn damiyeen adigana inay ku daminaya ama waa kuwaalaya kuwa ka takhallusuu jira sidaysan dad kale weerar ugu qaadin marka qiso runtii waxay ahayd qiso la yaab lay ahayd aada cajiibu ah marka adinkuna fakari aragti bal qisadan wixii idinkaga soo baxay noo soo qora aad baan u jeclahay commentiska aad ka bixisaan iyo sida aad fariimaan noogu soo qortaan qisooyinka aad baan u akhriyaa dad badan oo aad iyo aad runtii uga falceliyaan arka mid kalena ha iloobinina fadlan like gareeya likes wax kaa dhibi mayso